iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dagaal beeleedyo ay ka soo cusboonaadeen qaar ka mid ah gobolada dhexe ee dalka ayaa maanta waxa ay kulan ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho odayaal iyo waliba waxgarad ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka waxayna ku baaqeen in gebi ahaanba la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday gobolada dhexe ee dalka Dr. Bashir Aadan Cali Danan oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka gobolada dhexe dalka soo naqabaqabi kulankani maanta ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana ku baaqay la joojiyo dagaaladaasi oo sababtay isku leeynayaan ilaa hadda aan la aqoonin geerina ay ka dhacday dhaawac badan uu jiro arrinkaasi waxaan maqalnay warku nagu soo gaaray inay barkada la qoday wax la mid ay ka bilaawdeen oo meel biyo lagu shubto waa wixii awoowayaasheen ay isku leen jireen oo u dhiman jireen 2014 kana in wiilashayada iyo xoogayay ku baabao haddana barkad la qoday ay biyo ilaahay biyo waana si dhulka ku hoos jiraan dadnimaan kula soo baxnaa loo baahan yahay inaan wax dhisnay maamul samaysano kadibna horumar aan gaarnay in maamul dadkayga islaayaan ma aha dadka ku nool adaado oo wax garadka ah culummo iyo caamaba dadka ku nool dhuusan reeb kuwa gaalkacyo ku nool wax garadkooda culummo iyo intaan culummada ahayn inay halkaas ku baxaan oo meeshii ay gaari karaan ay aadaan meeshii aan la gaari karin dadkii wax ka ahaaba jooga gobolada iyo degmooyinka sidoo kale xubnihii kulankaasi ka soo qayb galaya iyagana waxay soo jeediyeen in la joojiyo dagaaladaasi laguna xalliyo si nabad ah waxayna sidoo kale sheegeen in guddi dhexdhexaadii loo diri doona gobolada xilligan dagaalada ay ka socdaan walaalaheen waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad inay dagaalkaas joojiyaan inay nabadda ka shaqeeyaan in ay ogaadaan dagaalkaasoo sii socda iyo dhibaatadoo sii badata inay keeni karto in meeshaas maamul ka samaysmi waayo annaga haddii ilaahay idna mar dhawaa meesha u soo soconnaa waxaana ku dadaali doonnaa oo habeen iyo maalin ka shaqayn doonnaa haddii ilaahay idmo in meeshaas loo sameeyo maamul cadaalad ah oo qofku xadgudba la horgeyn doono cadaaladda waa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dagaalku wuxuu ka dhacay gobolada dhexe wuxuuna ka dhaxeeyaa beelaha walaalaha ah ee meesha degan runtii anigu gobolada dhexe 10 bari ka hor baan ka imid dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo iyo caawd waaq intaba waa tagay waxaan ka mid ahaa dad odayaal oo heshiisiin u aaday meesha wax badan baa la soo xaliyay waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalka soo noqday oo deegaankaas ka dhacay oo sidii walaalihi hadla u sheegeen wax lagu diriraa aanay maanta meesha oolin xaqiiqatan gobolada dhexe dadka degan dhacdooyin badan oo soo noqnoqday baa hadda 3 bilood ugu dambeysay maxamed ibraahim gaabo Royal TV Muqdisho